أحمد علمي بر نور أحمد جيرو كميدا سياسيين تقبل بريق سوماليلاند كانت ترسن قرب جوجت قبل كسنة جارهان دقمدا قردق قبل كاسي أيا ورئيس جارا أو ما تسيني تلفزيون كان عالمي أريال تي في كذا هاللي قدوب بدن كميدين شرمال ما بوجا السعودي بيش يصدقمدا قردق قبل كسنة يسقوا بسمي السعود كشركاسي كو أمان مرحلة دقنكا إدادين يسي شركاسي وحنا وقورين يسقوا قدوب كاسي كهذا كميدها هذا الذي سي halka waxaan uga socday shir deegaanka reer Garaadaga shirkaas wali uu socdaa ujeedadiisu waxa weeyaan inay nabad aan ku baaqno nabad baan wadnaa waxaan u wadnaa ehelkayo waxaan u wadnaa tolkayo waxaan u wadnaa deegaankayaga waxaan u wadnaa gobolkayaga waxaan doonaynaa nabadda in la Soomaaliland nagala shaqeyso dhammaan reer Soomaaliland oo wixii danaynaya dan nabadda gobolka Sanaag inay nagala shaqeeyaan hawshaas aan doonaynaa waxaan kaloo aad dhanka kale siyaasi Axmed Jiir wuxuu ciidanka qaranka Soomaaliland ku amaanay guusha ay ka gaadheen dagaalkii maalmo ka hor ka dhacay deegaanka Tukaraq ee dhexmaray ciidanka qaranka Soomaaliland iyo maamul goboleedka Puntland wuxuuna yiri hambaliyo iyo tahniyad iyo taageeraba oo haya oo muujinaya oo aan u diraya ciidanka qaranka Soomaaliland guulihii ay dhawaan ka soo hooyeen cadawgii soo weeraray waxaan leenahay way idin garab taaganahay hiliyo hoobaanu idin nahay lagu xisaabtama inta markaan dhaafo ugu dambeyntii wuxuu siyaasigani si qoto dheer uga hadlay colaadii dhawaan ka dhacday degmada Ceelaf Weyn iyo qaar kamid ah deegaanada ay xukunto isagoo dhankiisa baaqu diray inay labada dhinacba hal nabadeed ku soo dabaalaan colaadaasi ka aloosan degmada Ceelaf Weyn iyo qaar kamid ah deegaanada ay xukunto dhanka kalena xukuumadda Soomaaliland ku bogaadiyay nabadeynta ay ka wado degmada Ceelaf Weyn wuxuuna yiri waxa jirtay muddo colaado soo noqnoqonayay oo dad walaalo ah oo isku isra oo isku ehela oo aan dhaleeyaa ku soo noqnoqonayay colaadaasu waan ka xunnahay runtii aad baan uga xunnahay inay soo noqnoqoto dadka ehelka colaadoodu inay ku soo noqnoqoto waliba si aan qurux badnayn oo caalamku la yaaban yahay Soomaaliland la yaaban yahay annagu aan la yaabanahay dadka waxaan ugu baaqaynaa nabad baan ugu baaqaynaa nabad baan ugu baaqaynaa kama maarmaan nabada iyaga u baahan waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dawladda oo aad moodo sidii ay u gelisatay si ka ballaaran iminka u gashay oo sax ah oo aan muddo fadhiyay gaar ahaan waxaan aad ugu mahadnaqayaa wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin waxaan leenahay wasiir madaxweyne Muuse Biixi oo fariin halkan uga diray gacan bira sida sheegtay in lagu qabto nabadgelyada oo aan kugu dhinac taaganahay ayaanu doonaynaa waxaanu doonaynaa sidaan hore nagu dhawaaqno Suudaankaygu nagu matalo oo noogu dhawaaqay Suudaankaygu nabad uqaasha iyadoon aalayay inay yihiin oo ku dhawaaqay nabad ka shaqeynaya halkan muddo ilaa 6 casho u fadhiyay iminkana uu sii fadhiya inay nabad ka shaqeeyaan aad iyo aad baan iyagana si gaar ah ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay uqaal waad ku mahadsantihiin dadaalkiina iyo taladiina nabadeed waa Maxamed Gumburi wararka Ariel TV degmada Garadag